shaqayn jiray qaybta dalxiiska xafiis ban magaalada Hargeysa ku lahaa 2014 annagoo markaa maalin ku jirna oo ku maqan trip aan markaa niman ajaanib aan wadno ayaa tuulo ka mid ah tuulooyinka Soomaaliland annagoo marayna ayaa nin reer miyiga ayay war niman kala dalxiis ka shaqeeya wuxuu noo dhiibay alaab atar qadiimi ah oo saxna kadib waxa dhacay alaabtii markii aan ogaaday inay tahay alaab atar qadiimi ah oo muhiim ah wuxuu markaa alaabtu waxay saxan buu ahaa saxan bilay buu ahaa oo ka samaysan dahab iyo maar dahab iyo maar buu ka samaysnaa ka aroodee aqoontan markay horeba dee iskuulada loogu soo dhigay og alaabtani inay tahay alaab qaaliya ayaa waxaa markaa waxaan u haystay inay ataaron tahay kadib alaabtii guri baan iska dhigay maxay ahayd waan dhoofay imaaraadkan tagay sawirradii aan haya ayaan niman masaari ah ayaan informationkii la share gareeyay marka la share gareeyay waxay ii soo baxay inay igu yiraahdeen alaabtan Masar baa laga soo xadayba hadda alaabtan wadankeena laga keenay marka waxa dhacay muddo kadib negotiation aan wada hadalnay nimankii waxay dhahdeen alaabtii naga iibi waxaan ku idinka iibin maayo alaabtan maxay ahayd wadankii bay taallaa nagee bay dhahaan wadankan kaaga iibsanaynaaye anagoo markaa dee damac galay magaranaysa dhaqaale oo isla kaba iibi ayaa waxay igu kalifeen marka ay dhahdeen alaabta soo qaado imaaraadka noogu keen may baan ku keeni maayo kadib nimankii halkii baan ku kala baxnay muddo markay ka soo wareegtay 3 bilood ayaa ninkii Masriga arrinka noo dhaxeeyay baa igu yiri miyaad garanaysaa alaabtan aad hayso waxay tahay waxaan ku leeyahay atar qadiim ahayn may bay igu dhahdeen maaha wuxuu igu alaabta haysan waa map weeyaan noqday wadankii Soomaaliland baan dib ugu soo noqday research iyo baaritaan baan ku sameeyay mapkii waxaan la xiriiray niman ka shaqeeya maxay ahayd koodhadhka cilmigan magaranaysa hidden treasury sign baa la yidhahdaa niman koodhadhkan fahmaya baan la xiriiray oo Suuriyan iyo Ciraaqiyaan ahayo online baa markaa aan kala xiriiray waxay ku qaadatay 8 bilood si aan koodhkan aan gebigiisaba aan u fahmo markii aan fahmay ayaa waxay soo baxay inay gebigeeduba tahay magaalo qarsoon magaalada waxa ku yaala exactly maxay ahayd waxa ku yaala sida Masar goobta loo dalxiiso waxa la yiraahdaa waxa ku yaala pyramids ahlamaad ku yaala iyo sphinx abul hol baa la yiraahdaa exactly saddexdii Masar ku yaalay ayaa maap kale ku yaala goobtii adigu marka 8 bilood aan goobtii ka shaqeeyay aan goobtii tagay waxa ay cadaatayba alaabtii maapkan ku hayaa meeshii tuuladii laga siiyay maapka inay kuba yaalaan saddexdii pyramid iyo abul hol sphinx mid wata maapkana wejigiisu saas waa tadexeen saddexaadna waa tan saddexda markaa maapka ku soo waran waa saddexda waa koow iyo laba iyo markaan halkaa marayo aan ogaaday in dee magaranaysa ay ahamiyad aad u weyn ku leedahay ayaan ganacsiban markii hore ku jiray ganacsigii wixii waan ka tegey ingiriiskan dib ugu noqday ingiriiskan tegey waxaan soo qaatay markaa koorsyo archaeology ah iyo museumka iyo qaabka loo rangareeyay waxyaabahaasaan soo qaatay waan soo noqday researchkaygii baan sii baaray waxay markaa igu qaadatay ilaa 5 sano inaan researchka dhammeeyo 2014 ilaa iyo 2019 kadib markaan halkaa marayno ayaa maxay ahayd aan gudagalay magaaladii alaabtan maapkan uu tilmaamayay waxaan ugu tagnay wax kasta oo maapkaasi sheegayo ayaan meeshii ugu tagnay aan kala kaashaday nimankii khubarada waxay ku yiraahdeen meeshan goobtan maxay ahayd waxay ahaan jirtay goobta adduunka oo dhan laga xukumo geeska Afrika boqortooyadii ugu awoodda badnayd ayaa deganeed bay igu yiraahdeen okay waxay yiraahdeen intaas oo ilaa 900 oo qarni markay xukumayeen oo intaas oo boqortooyo ay soo xukumaysay ayaa waxa dhacay wax walba adduunka wuxuu leeyahay bilow iyo dhamaad ayuu leeyahay boqortooyada awoodeedii markay soo daciifaysay ayaa boqorkii iyo ninkii la taliyihiisii waana maapkii ku sawirantay boqorkii la taliyihiisii baa tashaday waxay yiraahdeen awoodeeni waa tan way soo daciifaysaa hantidii qarankana waa la bilaqaysanaya oo dagaalo badan baa kaga socday boqortooyada jaarka ah kadib waxa dhacay markay tashadeen waxay yiraahdeen sidan haddaan ku sii socono boqortooyada iyo aqoonteedii iyo cilmigeedii iyo hantideedii wax walba la wareegaya maxaynu sameynaa waxay ku tashadeen inay sameeyaan magaalooyin underground ah magaalooyin dhulka hoosteeda ah inay sameeyaan bay ku tashadeen kadib markii ay muddo socotay ay magaalooyinkii underground ay sameeyeen way kala qaybiyeen qayb waxay ku xareeyeen kutubtii iyo cilmigii iyo aqoontii boqortooyada qayb waxay ku xareeyeen hantidii boqortooyada wax kastaba ha noqoto dahab wax kastaba ha noqoto halkaas lagu xareeyay hadda waa boqortooyo xukumi jirtay bari ilaa galbeed the land of punt waa tan leeyahay maanta waxaan anagu xaqiijinay in Somaliland goob ka mid ah ay ahaan jirtay caasimadii the land of punt ee boqoradii Hatshepsut boqortooyadii waxay xareysay hantideedii oo dhan bay xareysay markay xareeyeen 12 albaab ay u sameeyeen oo underground maapkiina way ku sawireen waa maapka waxayna imika Somaliland Archaeological Association waa hayna xukuumaduna way ka warhaysaa
اوكي وانا دونينا ولي ان شاء الله marka museum kala furo inaan xukuumadda iyo qaranka aan ku wareejino insha Allah taala koob iyo tobankii albaab bay xireen koob iyo tobankii albaab bay markaa maap ku sawireen maapkii bay markaa goob ka mid ah albaabada ay dhigeen marka goobtaasi waxay u baahan tahay markaa daafur iyo in garanaysaa ay baaritaan rasmi ah lagu sameeyo ha waxay u baahan tahay anta research-eeda anagu naga dhammaystiran yahay keliya waxaa la doonayaa in maxay ahayd xukuumaddu ay si magaranaysaa official ah waaqo in dee magaranaysaa la helay goobtii magaranaysaa lagu tuhmayey inay tahay caasimaddii Dalaan of Punt marka caasimadda noocaas oo ah leedahay maapkaasi ku taala kan waxay u baahnaanaysaa tusaale kale in la qodo maadaama Adan Garooba ayaa la dhisay meeshii ma in la qodo ayuu baahnaa mise area inta la calaamadiyo in loo aqoonsado inay caasimadda haysto oo baaritaankaasi lagu ogaado wax rasmi meesha ka jiro si fiican waxaanu waxay haday taladii aan soo jeedinay bariga aan ku wareejinay xukuumadda waxa ay goobta laga helay maxay haday pyramidska iyo ahlamaadka ee caasimadda Dalaan of Punt ahayd inay xukuumaddu dikreeto madaxtooye ay ku soo dejiso la yiraahdo waa goob maxay haday atar qadiimiya oo qaranku leeyahay oo aan la taaban karin marka taa laga gudbo in loo diro khubaro maxay haday ururka iyaga iyo khubaro caalamiga labadiiba ay iska kaashadaan si maxay haday loo soo cadeeyo maxay haday koob iyo tobanka albaabi aan hayno sidii loo furi lahaa taana waxaa ka horeysa maxay haday sharciyadii maxay haday atar qadiimka oo weli aan xukuumadda Soomaaliland aanay ansixin oo la doonayo marka hore marka sharciyada la helo talaabo ma qaadi karayno anagu mana qodi karayno cid inay qodana uma ogolin sababtoo ah wax sharci oo ka yaala Soomaaliland haba yaraatee ma jiro taana waxaan ku codsanaynaa wasaaradda dalxiiska iyo arkeolojiga inay